الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحمد لله. محد الله باله ربي إن كل مية أهل كانوا كل مية مهدا سكاسكله إن إلهي أنوينينه وأن كدم بينه وإلهي سبحانه وتعالى أن سجودنا وأن ركوعنا وأمت أن قدنت أن يكون جرتويان سيدو كله إن أنشعلنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبي وحي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها 10. قفك مرء يصلي إلهي بات تمجر كصليني بالنبي صلى الله عليه وسلم. نبي وحي أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. معلنت قيامه وها يقولوا أو يقول أوليسا أو يقول مضن كين يقول صلين تبضن. صادرتها إن أصلي النبي بدنا أيام قرنيس أن كل بهنينا. نبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. ما لهنا تضبات كأه وها وفضل بدن معلنت الجمعة. فأكثروا علي من الصلاة فيه مالنتا وحب بديسان سلقيق بديا، فإن صلاتكم سلقين معروضة علي وليسو بندقيا أو وليسو قارسينيا. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك؟ قال: وقد أرنت. قال: يقول بليتا وحيدهين صحابة وحيدهين رسول إلهي adigoo baaliyoobay oo ciidda ku cuntay sidee lagugu soo bandhigayaa salligayaga? markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam: inna allaha harrama cala al-ardi ajzaama al-anbiyaa. ilaahay wuxuu ma garanaysaa u diiday ardada oo uu ka mamnuucay in ma garanaysaa jirka ambiyada ay cunto. saa darteed inaan nabigeena ku sallino sallallahu alayhi wasallam. nabigu wuxuu yiri: raqama anfa rajulin ذكرت عنده فلم يصلي علي. رقم أنف الرجل من سنكي هبورو وهد اللوبو ذكرت عنده أكتيس الله يوصو قاضي أو فلم يصلي علي أن يوصلي من ها إلهي هد الليو أو هد اللوبو قف أكتيس الله يوصو قاضي أو أن يوصلي من الله هد الليو النبي صلى الله عليه وسلم. صادرت إن أصلي النبي كدد الله لدنيا: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. قبري إيجا هكذا ما اللي سوي ماذا وقت يسن أو لو كل ما هكيه لنا، لكن متبا يدين فرن وصلوا علي يوصلي فإن صلاتكم سلقينا تبلغني وليسو قارسينيا حيثما كنت مال الله لإيو ميشد جوكتين وليسو قارسينيا أي وصلي أسلق بضيب النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد قف ما قرن يسمى ما من أحد سلموا علي قف إما السلامه إلا رد الله علي الروح. هدو إسلامنا ما قرن يسمى إلهي بالروح ديدي يسو علينا حتى أرد عليه السلام. سيما قرن يسمى أنه ugu qaado qofka salaanta si aan ugu radiyo. marka salaanta ina ku dadaalna ayaa la doonayaa. nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam: hal bakhiilin man dhukirta cindahu falam yusalli alayhi. ma garanaysaan qofka ugu bakhiilsan ma taqaanaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. qofka ugu bakhiilsan waxa weeyaan qof agtiisa la igu soo qaaday oo igu sallim waayay. kaaba dadka ugu bakhiilsan buu yiri. dadka ilaahay abuuray waxa ugu bakhiilsan qof agtiisa la igu soo qaaday oo i xusi way kaaba u bakhaylsan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam. marka inaan salliga badina
waxaan kusoo gabagabaynayaa xadiiska nabiga sala allahu calayh wasalam. saxaabi baa u yimid, saxaabi ayaa u yimid oo wuxuu yidhi yaa rasuulullah, aniga waxaan badiyaa salligaaga marka aan ducaysanayo, adiga intee la eg baan salligaaga ka dhigaa? faqaaluu yaa rasuulallah, qultu inii ukhiru asalaata calayka fakam ajcalu laka min salaatii. marka aan kugu sallinayo intee in la eg baan adiga kaa siiyaa salliga? markaan ducaysanayo, ducada aan ducaysanayo intee in la eg baan salligaaga ka dhigaa? nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam, qaala maa shi'ta, in alla intaa doonta ka dhig. saxaabigii baa hadla wuxuu yidhi, qultu alrubcu, waxaan ka dhigayaa 4 meelood ducada marka loo qaybiyo 1 meel baan salligaaga ka dhigayaa. ka waran nabi maxamedow. nabigu wuxuu yidhi, qaala maa shi'ta fa in zidta fa huwa khayrun lak. waad ka dhigi kartaa 4 meelood markaad u qaybiso 1 meel salligayga waad ka dhigi kartaa, laakiin waxaa kaaga khayr badan inaad ka sii badiso. saxaabigu wuxuu yidhi, qultu annisf, ducadaan ducaysanay marka 2 loo qaybiyo 1 qayb waxaan ka dhiga salligaaga ka dhigaa nebiga alla. ka waran. nebigu wuxuu yidhi, qaala maa shi'ta fa in zidta fa huwa khayrun lak. inaad ducadaada 2 markaad u qaybiso qayb salligayga ka dhigta way kuu bannaanta, waad awoodaa, laakiin waxaa kuu wanaagsan inaad kasii siyaadiso. saxaabigu wuxuu yidhi, qultu athuluthayn, waayahay ducadayda 3 markii loo qaybiyo 2 qaybood salligaagan ka dhigayaa. ka waran rasuulka ilaahayow. qaala maa shi'ta fa in zidta fa huwa khayrun lak. waad awoodaa inaad sidaa ka dhigto, laakiin weli inaad kasii siyaadisaa kuu fiican. saxaabigii sirta noloshuu helay marka wuxuu yidhi, qultu idan ajcalu laka kullahaa, haddaba ducadayda bilow ilaa dhammaad salligaagun baan ka dhigayaa. salligaagaan ku bilaabi, salligaagaan ku dhammayn. ka waran. nabigana wuxuu yidhi, idan tukfa hammuk wayakfiru laka dambuk. haddaad sidaa yeesho oo ducadaad ducaysanayso bilow ilaa dhammaad aad salligayga ka dhigto, 2 arrimood baad helaysaa. tukfa hammuk, hammigii ku hayay, welwelkii ku hayay, stresskii ku hayay, xanuunkii ku hayay, guud ahaan ilaahay baa kaa qaaday oo taa waa lagaa kaafinayaa. ma intaas intaa un kelimiya, wayakfiru laka dambuka, dembigaagana waa la dhaafiyaa. 2 arrimood baad heshay, welwelkii iyo stresskii ku hayay waa lagaa qaaday, dembigaagana waa la dhaafay. saa darteed inaan ku dadaalno salliga nebiga ayaa nagala doonaya. jazaakum allahu khayr. inaan sidaa yeelno soo diyaar ma insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.